السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياش قيمة بدنا جماعة وناكسن sidoo kale kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada shirka jaraa'ida macallimiinta EPL qabteen qaar ka mid ah soo qaadanayna sida ninkii Robin Amron oo kale Manchester United kooxdiisa Fulham ahad wajahaysa ciyaar must win United oo tahay sababta toddobaadka hore guuldarro ku daafurtan big game dhibcaha Arsenal ka shaxada Old Trafford jooga laakiin markaan waxay booqanayaan Craven Cottage macalinka su'aasha ugu horeys la weydiiyay waxay ahayd Onana ciyaaraha kulanka Fulham macalinku wuxuu dhahay isbuuc hore waxa uu caafimaad qaba Andre Onana kulanka Arsenal uu ciyaari karo ana marka go'aanka iska lahaa ciidan ciyaarsiinayo oo saadirta saasan kulankaas kaga reebay haddana wuxuu dhahay same like that sidii la waayay kulanka Fulham yaa ciyaaray ana go'aan kale alta bayandiir team hoyto Onana meesha tartana jiro ka dhawaajay taas oo ku muujinaya marka Robin Amron in kalsoonidii ahaan jirta Onana waa golayaha koowaad ee kooxda lama taabtaanka meesha inay ka baxday saadirta marka Onana tababar adag ku jira ana xataa way arkay muuqaalka asile daawadaba soo u boodayay iyo soo u hadlaayay dadkiisu dhinac kaga jira saadirta marka Onana oo fit ah Robin Amron keeda ku heen walaalo ninka nin weyn waaye ama waxa dhahdaa saaxiibo kooxda way ka maarantaa iska bax hadanaysto ama straight u sheeg waxa dhahdaa you are the number 1 goalkeeper at booskaaga dhacsa laakiin ninka saana u galaya bood ka dhamaada dhulku isku garaacay adilo intaas ka galaya laakiin macalinka ma ogu kama geeyay sidoo kale wuxuu sheegay last week guuldaradii ku dhacday in dabcan madaxiisa sare u qaadi karaan asiga iyo teamka waa groupka iska wareysteen waxyaabo positive kan waxay tahay qaabka u ciyaareen maxaan rabaa oo marka toddobaadka hore bandhigi inaan ku celino hadii aan ku celino oo I'm sure waxaan hubaa inaan guuleystaan the most important wuxuu dhahay consistent performance waa dhahay last week everyone praised as qof kasta uu amaano dhahay aniga ciyaartooyda amaane media waa amaantay qof kasta kalsooni uu qabay inkastoo guuldar Manchester United ay ku dhacday laakiin waa ka warqabnaa ayaga waxaan the best team aan ayaga Arsenal sida Arsenal loo ku baariyay loo weeraray performance-gooda brilliant waa marka that brilliant performance aan rabnaa inaan ku celino haddaan ku celino am sure wuxuu dhahay by Sunday waa guuleysan karnaa dhahay sidoo kale akhbaaraadka Manchester United laba ciyaartooy kaliya ka maqan waa Lisandro Martinez iyo Nacer Mazrou out of squad laakiin inta kale waxa waa fid waaye macalinka marka squad selection ka asaa laga rabo inuu shaxda ugu macquulsan soo xisho ninkii Imbare Mbwama ahay Benjamin Sesko iyo Matthias Cunha waxaan saadaalna inay shaxda soo wada gali doonaan sababtoo toddobaadka hore shaxda saddexdan way soo wada gali waayeen waxa maqnaay Sesko oo qaybihii dambe la keenay kooxdana markaas tababar la sameeyay aan hal kulan ciyaar laakiin this time asoo tababar dhameystiran sameeyay almost man 6 daqiiqo kadib la keenay waxa isla marka Sesko diyaar waa saddexladaas wararka kooxda hogaamin doonaan intaas ugu muhiimsan Mustan Amron ka hadlay marka ra'yigiina ka dhiibto saaxiibada markaan aan soo qaadanaynaa Michael Arteta Arsenal hogaamiye arrimaha uu ka hadlay shirka jaraa'id u qabtay Michael waxa ugu muhiimsan Christian Norgard wuxuu sheegay squad inuusan la soconin oo dhaawac u yahay kulanka ay ciyaar doonaan ay wajahayaan I think in Burnley wajahana jeclay wuxuu kaloo sheegay ninkii dabcan Ben White inuu ku jirno kulankaas ciyaari karo Julian Timber wuu soo laabtay laakiin wuxuu dhahay toos shaxda uma soo gali karo asigana wuxuu dhahay wuxuu u boqol kilood macnaha waa inaad daqiiqadeer ciyaarsiina soo kabtaa kadib Timber wuxuu dhahay ana ilaalin doono dhahay Gabriel Jesus wuxuu dhahay xoogaa horumar uu soo sameeyay laakiin boqolkiiba boqol asigana fidmahan uu ka dhawaajay Michael Arteta mar Gabriel Jesus ma soo dhawaaq Timber squad waa la xulan karaa sida macalinkan uu sheegay sabdigan ciyaaraysa Arsenal 17 BST oo British time hadii laba lagu daro aniga I think todobada ibarfiidnimo xilliga geeska Afrika ciyaari doonaan waxa kale wax laga weydiiyay Havertz dhaawiciisa ka waran wuxuu dhahay hadda sharaxaad aan ka bixin karo iyo muddada uu maqnaan karo iyo sida dhaawacaas uu ahayba kama hadli karo yaas wuxuu dhahay qasaaro weyn nagu tooday kay inuu naga dhaawacmay laakiin qolooyinka caafimaadka u dinana oo qiimeynta ay sameeyaan xaaladda dhaawaciisa inay ogaadaan reportka ay soo saaraan kadib aan ka hadli doon laakiin hadda wuxuu dhahay wax media aan la wadaago oo sax ma hayo xoogaa marka meesha waxa ka muuqata dhaawac Havertz serious way injury dhanka jilibka gaaray tababar ku gaaray extent uu maqnaan doono grade level dhaawac jilibka gaar intuu la egyahay waxa soo dhan markay qoliyaha medical report ku soo wareejiyaan ayuu Michael ka hadli doonaa nooga warnaa Victor Yagros la sababta Havertz ma ka dhaawacan yahay Victor no isbuuc hore kulankii Arsenal iyo Manchester United xoogaa fid muusan ahayn 60 daqiiqo ciyaar waa la bedelay macalinka wuxuu dhahay he is in good shape jaw fiican ku jira wada kulankaas Burnley oo ku soo bilaabay uu dhahay toddobaadka hore 60 daqiiqo ciyaar tababar adag uu sameeyay uu diyaarsan yahay markii uu kooxda contribution ugu sameeyay su'aashii tooska waa la weydiiyay is nooga warnaa kooxda maadaama ay soo qaato wuxuu dhahay nimayo he is not part of my group kooxda qayb kama ahan teamkii qayb kama ahan no comment sababtu wuxuu dhahay wili ciyaarahankaas heshiiska ma dhamaa markuu tijaabada caafimaad maro la soo bandhigo tababarku imaado markaas Ismail Blair waa ka hadli karaa oo sax waa sida saxda ah ciyaaraanka Arsenal oo gadan yahay Crystal Palace Arsenal waa kala baxeen 5 sano contract uu saxiixa xal Conference League lama ciyaarsin laakiin Arteta the right answer oo baxsho still ma ahan ciyaaryahan kooxda ka tirsan waa inuu tijaabo caafimaad mara tababarka imaado kadib uu ka hadli karaa that's the perfect answer oo macalinka uu bixiyay wata wana hadalku ugu macquulsanaa uu sheegay la marka idinkan aragtidiina ka dhibta ciyaaraankiina waa yahay laakiin macalinka wuxuu diidaa iska hadal iska burqay inaan wali aan tijaabo caafimaad ku marin no way lagama hadlo waana sida nidaamka saxda oo Arteta uu mar marka recapka press conference-ga Arteta intaas ugu muhiimsan saaxiibayaal ininka ra'yigiina ka dhibta Gunners kana nasiib wacan original kulanka Burnley ee wajahayaan
marka ana soo qaadano Joseph Pep Guardiola kooxdiisa Manchester City big game waxay la ciyaaraysaa naadiga Tottenham Hotspur la ciyaaraysaa Pep Guardiola arrimo badan oo ka hadlay ragii dhaawac wali waa maqan Kovacic iyo Rodri wuxuu Steelers inta group qayb ka yahay toddobaadka horena qayb uu ka ahaa teamka toddobaadkana qayb uu ka yahay laakiin inuu ciyaaro oo ku badalaado September kama second markii qaramada laga soo laabsado Pep uu xaqiijiyay big news ka Manchester City ka jiro waxay tahay Ruben Dias qandaraas ku dhinta uu sameeyay Ruben wuxuu halkan waa magaalada Manchester isma home u dhameel aan ku darsanay ma jirto qandaraaskiisa ilaa 2029 uu gaarsiiyay difaacan Portugiiska mashallah Man City guulo badan la gaaray ragga ugu wanaagsan kooxda saadartay marka Ruben Dias uu doorto kooxda inuu sii joogo kaalintiisa uu qaato ogaada Man City iyo ku dhuman bari waa sabdi maalin shaqo kulliga nootay working day anaga jimcaha hatta waa shaqana laakiin waxaan ka hadlaa sida guud sabdiga waa maalin ugu hore sabdi salbi qoqan City marka lunch time ka lagu aadiyay jadwalka wax isku aadiso labada ibardo hoonimo ku aadantahay xilliga geeska Afrika 2:30 PM kulankaas waa la baasan doonaa Premier League ayada lagu dahfuraa sida caawa Chelsea waxaan ka wadaa West Ham tonight waa caawa 10 PM laakiin weekendiga sabdi axad kulamada la ciyaarta lagu dahfuraa waa City Spurs meel ku qoro 2:30 PM way in akala Pep waxa la James Trafford ma ku soo bilaabay ma hubiyo dhahay in kastoo toddobaadka hore ku guuleystay goolayaha ugu wanaagsan Championship waliba laacib ugu fiican Championship ku qaatay maadaama Burnley Serbia ka keenay sidoo kale kulankii Wolves waa lagu soo bilaabay shaxda kooxda soo gal uu ciyaaray haddana still wuxuu dhahay Ederson kooxdu ka mid yahay tababar uu sameynaya tartana jiro dhahay cid ciyaar doonta ma hubo xitaa gaardaladiis waxa laga fahmay in City macquulta suuq inay ku laabtaan si ay goolahay u keensadaan hadii Ederson uu baxo marka goolayihii laacib ugu fiican Championship soo qaateen 7 bond laga soo bixiyay haddana still not sure lama hubo inuu ciyaarayo in kaleeto waxa kale wax laga weydiiyay mustaqbalka ciyaartooyda qaarkood Savino wuxuu dhahay my team group kooxeedu kamid u dhahay wali wuxuu kale dabcan ka hadlay ciyaartooyda qaarkood wuxuu dhahay kuwa aan lahu mustaqbalkooda u dhahay hore Pep u dhahay ninkii aan kooxeedu ku qanacsaneen walaalo iyo just xafiiska iyo ma ama xiraad tababarku waxay dhahdaa inaa baxaan rabaa fariintaas waxa loo diray marka Akanji oo kale Ilka Gundogan Nathan Ake group waaweyn waxa jira oo aan ku qanacsaneen isbedelka oo xidid siibka oo Guardiola uu wada maadaama Kevin De Bruyne uu diray Kyle Walker uu diray Jack Grealish uu diray rag badan uu diray Ederson uu diri karo nimo waaweyn shaqeyn waxa isla idinkan markiina way odag ama in dhaha baxa Pep wuxuu dhahay aniga squad yaraan waa buuq madax xanuun mar nin weyn aan noqday 25 aan u baahanay 26 squad keenay inuu saka badnaa marka simple qofkan ugu qanacsanay ama qofkii shaki qabo just come to my office xafiiskayga ma ii sheeg walaa qabti ana ku qancinay kooxda qaybka ah hadaan ku qancin karin walaalo waa baxaysaa ragii waaweyn aan isku sheegayeen Pep wuxuu ku tooro kullee shirka jaraa'id Pep marka caadi ma ahan waxa kale la isbuuc hore Man City waxay qabteen Wolves 4 gool ever kaga badsheen waxaan noqoteen the best team oo toddobaadka hore league ciyaartay hay ma soo laabtaan la fear factor-kii Man City in laga cabsado waa ka warqabnaa City 4 Real isku xigtay qaaday kooxda qabtaanba waa diri jireen ayadoo City xitaa away am home ee tawa laga cabsan jiray laakiin xilli ciyaareedka kooxda xaaladii ay gashay kulan badan waasay markii dambe top 4 qadiyaan ku gashay meesha waxa ka baxday fear factor-kii Guardiola wuxuu dhahay I'm not a magician saaxiibayaal aniga sixroom iyo ama tafaaful loom iyo dhahay hal ciyaaraan perfect game sameeyay isla markii ma naga cabsanayo no way waxaan u baahanno dhahay consistent performance consistent result aan u baahanaa de ciyaartooyda wuxuu dhahay toddobaadka hore soo ciyaaran Tiani iyo Chirki iyo Haaland iyo kulli ay joogtayaan u dhahay guushana joogtay noqoto by nature ayda iska imaanaysa fear factor-ka oo City miya Allah ay ugu aadin liijer waa imaanayo laakiin hadda aniga سحرومي هل عياران بس سحرومي ودتك دني ميجا عبسنا وده قاعد امتحان عادي وميديا إنجليز كوابرت فوست أصور ريحان وأسكسي الريحة على ورق جارديولا محنات عادي ومركة لكن كان صدق وهذا وجع له إنك استويه معاني نقول كفي عن وقول دروين وسنجعلان لكن the way he speaks وحاول سي ومعقول سنة وهذا نعكلت وحال مان سيتي إسباني وايس كورنا لو إن حاجة قرش بدن أي سنبحنا أما قيب أكيين كوحا بريمير ليج لبب بليون أو بوني كبدن قرش كريان وحود سيتي كلمة هنود هي كوحدة عن العجها فرح بدن قرش كريس كوحا بدن قرش كريان سادرت يقول it's not just a city spending big سيتي كلمة هنا كوح كستا وح قرش كريان أول وحود وحي هاجرتو ده سوق ما فرنها مان سيتي وكوحدة العقد وبدن بحس سيتي هنا قلقبت لك هذا وأوجدين وده واحد صعده سيتي كلمة هنود وأوجدين جيلسي قرش كريان أرسنال ولسه منسو ليفربول كذلك مانشستر يونايتد marka aragtidii ahayd ama theory ahaan jirta Man City meeshan lacag kaliya ku maqoon soo bixiso hadda waa jeedin oo kulli inay koox kasta lacag la bixinayso marka ra'yiina ka dhib saxab albaab intaas ugu muhiimsan oo ka hadlay in akala waxaan soo qaadan karnaa ninkii ay Eddie Howe shirkad jaraa'id dhanba wuxuu noqday main question is Alexander Isak waxaan rajeenayaa inuu Isak koox dib ugu soo laabto teamka aqbalaan caawiyo wuxuu qof diidaya mala Isak inuu teamku soo laabto caawiyo anina waan rabaa
kooxdan way rabtaa sidoo kale xitaa wuxuu dhahay isaaq si gaar ah ula hadlo dhahay arrimo qaasan ka wada hadalna oo private mustaqbalkiisa oo hadda public aan ka hadlaynin inkastoo wuxuu dhahay wili kooxda uu ka maqan yahay toddobaadkan aan arkin laakiin wuxuu dhahay isaaq waa ciyaaryahankeyga saaxiibaan nahay telefoon waa ka wada hadalnaa ani asoo wuxuu dagaal naga ma dhaxay laakiin aragti guud waxa jirta kooxda isku diidan yihiin waxa rajaynayo ka dhawaaj inuu kooxda ku soo laabto waliba wuxuu dhahay ciyaaryahan isaaq oo kale in aan lumis wuxuu dhahay qasaare ka weyn ma jirto marka wuxuu dhahay waxaan rajaynayaa in wax walba la xaliyo si uu kooxdan ugu soo laabto isniinta waxa isku aadan Liverpool waa ka warqabnaa iyo Newcastle ayadoo dabcan kulankaas uu noqon doono Blackbuster game isaaqan had squad maba ku jiro saa ka warqabno macalinka sidoo kale wuxuu ka hadlay daawadayaal uu sheegay arintan wuxuu dhahay hadda aan ku jirno waa arin aad in looga shalay mudan oo sababta wuxuu dhahay xagaagi suuq gal fiican ma ana sameeynin horyaalkii wuxuu noogu bilaabay buuq anagoo ku jirno regrettable waxa waa dhahay marka situation xaalad oo laga shalaynayaan dhaxda kaga jirnaa Eddie Howe laakiin waxa rajaynayaa xaaladda inay dhamaato sidoo kale waxa wax laga weydiiyay isaaq kooxda ma ka tagay la dhahay wuxuu dhahay arinkaas aniga ma ogiyo kaliya waxa information ka siin kara toddobaadkan isma arkin xaalad ahaan waa is wareysane kooxda haduu ku soo laabanayo diyaar anytime diyaar u nahay ciyaaryahan kooxda loo diidi kara ma ahan u dhahay laakiin markii noqoto ma jooga mise uu baxa su'aal adiga weyn waa oo su'aashaas asiga iyo maamulka dhaxtaala oo bal hal meeshii loo helo xal u baahan inuu leeyahay xalka maxay tahay ninkan Liverpool inuu ku biiro loo fasaxo ama in dabcan kooxda ku soo laabto ciyaaro intaas wixii ka dheeray macalinka ma uusan jeclaysanin wuxuu kaloo sheegay Jacob Ramsey oo kooxda ku cusub toddobaadka hore Aston Villa ka soo qaateen in ciyaaryahankan kulanka Liverpool diyaar u yahay ciyaarto shaxda uu soo gali doono ciyaarsiin doono dhinaca kale wuxuu dhaqan ahaan Liverpool Newcastle weligood baa iskoor imaadaan xasaasiyad iyo dagaal dhexyaal u dhahay ciyaarahaasna waa la yaqaan markasta iskoor imaadaan waana sax Newcastle Liverpool fixture-kooda wuxuu ka mid yahay forever Premier League ugu xamaasada badan ama hala joogo St James Park ama Anfield lagu ciyaaro labada taageer isma arki karaan waxa ka dhaxay taariikh badan saa darteed haddana xasaasiyadda meesha ugu sareysa marayso isaaq la isku haysto أحد وحوليه Monday night وحرجنا جرانك واللي فايرون نقول دور تاجرياش حماس دور قادم دوران سئ كلام تضنع عيان ورإيدي هاوس ويا تاجراشو يعني ليفربول وشتارك وروحوا إن عول بيننا وقيل شو الفها لو قال مركب وأركض أنا وياك سوق الساحب ديال إذا كان رأيي كديبته نمكي إسبارس هاي توماس فرانك وحوشاق رجالس إنه يمين مانك سترايكر كأكلن كمان سيتو يارسين دولار حتى وحب بيري معاني كوررك أدنى يشيسكي إيز مالمي ودن بيلو فشل من إن لا كريستال بالاس رجالس وإنسينو معاني كحول وحاس وحكي جرا ماله رجالس وحودا مين مانكي ونمبرنا أسائق يارا معاني كحودا ويا ديسابوينت السوق وكون نيجبنا لكن ما ملك يعني كل سنة قبل توماس فرانك وحودا إن عيارتو يكين دونا hadda wuxuu dhahay ciyaartoy badan dalbado targetkayga waa la keenay still wuxuu dhahay kuwa arab nawaaweyn laakiin wuxuu dhahay waxa muhiim ka xigto wada wili suuq inaan ku jirno aan xulul kala duwan heli karno marka Thomas Franken intaas ugu muhiimsaneed in kooxdiisa Richarlison uusan ka tageenin niga jabkii Easn oo gadaal iska marsi maadaama Arsenal ku garaacday saaxiib muuqaalkan intaas nooga eegay wixii kala soo kordh waqti kala isugu imaan doona xasuusina hadii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe noo saar waa inoo kulan dambe haduu alla idmo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh